heshiiska haddaan faahfaahin kaas iyo horta muddo imika dee 2 sanadood iyo dheeraada arrintaa waanu ku jirnay doorashooyinka saddexda xisbi iyo xukuumadda intuba way ka shaqaynayeen waxaa suurtagal waxay noo noqon weyday muddada in dhowr heshiis horaanu galnay oo sidoodii u socon waayey gudiyo iyo odayaal culimo iyo isu tagay oo iyaguna sameeyay baa jiray soo dhex galay oo qodob soo jeediyay ay leeyihiin idinkoo sharciga u eegaya waxa soo dhex galay akademiyadda oo iyaguna ururiyay aqoon-yahankii reer Somaliland iyo dad kale oo badan oo waxgarada annagu muddo fara badan baanu saddexda xisbi haddaanu nahay kulamo fara badan oo dhowr iyo 60 baanu qaadanay alxamdulillah heshiiskaas waa heshiis wanaagsan waanu soo dhaweynaynaa waana runtii guulna way u tahay Somaliland in wixii dhexdeena dhamaysano doorashooyinka sida inoogu dhici laayeen aynu falowgeeda qabanno saddexdii xisbi way heshiiyeen heshiis sida aad u sheegayso dawladna soo heshiisaan soo dhaweynayna weeyaan aad iyo aadna uu wanaagsan mudane gudoomiye miyana nasiib darrahayn maanta Somaliland oo xisbiga KULMIYE mar labaad doorashada uu ku guuleysto xilka talada dalka ayay beesha caalamka inta soo dhex gasho ay go'aamayno yeediyaan aynu qaadano taa miyana nasiib darro lagu tilmaami waa su'aal wanaagsan waan maqlayay maalin dhaweyto dad sidaa u sheegaya runtii mana ahayn dhexgalayna soo dhexgalay iyo ajanda leynoola yimi midna ma ahayn arrinkaasu waxa weeyaan waxaa sameeyey shacabka reer Somaliland xisbiyada markii hore odayaal baa inoo soo dhexgalay fikir soo jeediyay oo fikirkay soo jeediyeen oo ahaa in commissionka hore la soo celiyo commission kan dambana la kala diray iyadoo sharciga loo raacayo way suurtagal weyday oo laguma heshiinin haddana waxaan xasuustay gabay uu tirinayay gaari Allah u naxariistay ilaahay naxariisanaasiya oo oranayay waxaan gudubtiisu harin garaad leedu og yahay ninkaaga masuugay kale arrin aynu inagu leenahay inaynu cid kala siino maaha heshiiska maalintii dhaweyta dhacay hal qodob oo beesha caalamku ku leeday beesha caalamku wayna caawisaa hal qodob oo ay beesha caalamku ku leeday kuma jirin waxa odayaasheenii qayb baa laga soo qaatay oo commissionkii hore si ay loo soo celiyaba akademiyadda ayaa waxay ururisay aqoon-yahankii Somaliland sidaan markii dhaweytaba ku sheegayay iyo waxgaradkii fikirka iyaga la yimi waxaana ugu soo horeeyeen xisbiga KULMIYE way noo yimaadeen anagu markaanu eegnay waanu la qaadanay mar labaad waxay ula tageen xisbiga dabeetana qoladii beesha caalamka inaga caawinaysay bay ula tageen iyaguna way la qaateen heshiis laynoo keenay maaha oo dibadda laynooga keenay waa heshiis shacabka reer Somaliland xukuumadooda xisbiyadooda intuba ay u riyaaqeen oo la gaaray weeye laba commission baa sida ka muuqata arrinta doorashada qabanaya sidoo kale labada commission sida heshiiska ku qoran waxay kol haddii saddexdii xisbina isu yimaadeen oo heshiis wada saxeexeen commissionkuna waa commissionadeennii kii hore iyo kan dambaba commission sharciya baa jooga maanta 5 xubnood 2 xubnood oo kalena waxaan rajaynayaa si dhaqso ah inay u soo magacaabaan xisbiyadu way qaateen inay soo magacaabaan labadoodii xubnood commissionka sharciga ee inoo yaalla waa 7 xubnood wixii kale dusha lagaga keeno commissionkii hore qolada deeq bixiyaasha dadka ku soo darayaan oo aan maalin dhaweyta maqlayay gaala arrinteennii gelaysay iyo intii commission ee Somaliland ka shaqaysay mid aanay beesha caalamku la soo shaqaynin muu jirin nin walba dib ugu noqdo soo baara commissionka weydiiya horena way u jirtay imakana way naga caawiyaan arrimo farsamo oo gaara oo ay u baahdaan tababar commissionadeena oo dhan intii commissionada Somaliland mid walba way la shaqaynayeen waan dareemay aniga laftigaygu way jirtaa
in dadkeenu de waxyaabo badan media lama xukumo laakiin casuumaddu waxay ahayd casuumad sidii aan u sheegay ay u dhacday oo ah ninaanu saaxiib nahay oo aan idhi waan ku casumayaa dabeetana casuumaddii sii weynaatay wasiirka warfaafintu ahaa dabeetana casuumaddii way sii weynaatay saaxiibtinimada weliba keligiina maaha wasiirada waxqabadkooda lagu casumayaa baan idhi oo xisbigaa ku casumay isagoo keligana maaha qaar kalena way soo socdaan baan idhi waana dhab way iman doonaan marka qofbadda meeshuu doono haddaanu u jahaysanaynin waxa weeyaan waa casuumad xisbigu casumay wasiir xukuumadda ka tirsan